بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخيارت قرون كعوالة جودة جود يجود فلنتا وقلبت هالكان نصيبان سوقية لناي إن سوقني معنا وتشدوين كشركة وحوها إن أنا السجور بحنه قرون كحالة ديسة ماشوا مريو هذا وحي قدم بيا تلامين كان قاعدينه waxaan soo qornay ajendayaal baan soo qornay guddigayga fulinta oo maanta rabaa inaan warbixinta idiin bixiyaan ajendayaashaas waxaan rabnaa wixii idinkuna ku dareysaan si aan uga baaraan degno hadal hayn badanna ay meesha uga baxdo walaalayaal xog waraysiga galabta aan siinayno guddigayga fulintu waxa uu yahay maalmahan waxa meelo badan laga sheegay ama dhagahay ku soo dhacday cawaale dhismihiisii lacag badan baa soo gashay markii hore oo lacagtaas soo galaysana waxa la filayay in lacagtaas u dhameystirto maxaa lacagtaas u dhameystiri weyday waase maxay lacagta muxuu ahaayay wali dhiman in la rabaa in la yabooho qodobka labaad oo rabnay inaan galabta idin kala hadalno waxa waaye garoonka horta laftirkiisu ma qabyaa mise waa dhamaada haddii uu dhammaan maxaa ka haray waxaan rabnaa inaan ka hadalno qodob kaloo ah muxuu hadda u xaniban yahay ma xaalado lacageed buu xaniban yahay mise wuxuu u xaniban yahay xaalado kale oo jira waxaan rabnaa inaan idin kala hadalno maxaa loo joojiyay yaboohii bulshada laga qaadi jiray ilaa iyo bilowgii oo hadda ilaa 2 sano camal uu socday gudaha iyo dibaddaba waayada waxa lama yabooho maxaa loo joojiyay qodobka afraad oo aan rabno inaan ka hadalno waxa waaye kaalinta guddiga fulinta iyadoo maxay tahay halkaan waxaan ku fadhinaa golii guud ee cawaale iyo guddigii fulinta marka guddiga fulinta oo idinka aad hawsha u sii wakiilateen annaga laftarkeeyo kaalinteeda maxay tahay si ay meesha uga baxdo madmadow badan oo dadka qaar muxuu ahay dibadaha ka jooga oo cawaale aan aad u ogeyn ay qabaan waxaan rabnaa inaan idiin soo bandhigno muuqaal ku saabsan garoonka cawaale shalay xagee ka soo bilowday maanta xagee jooga taas oo dadka tusaysa muxuu ahay garoonka cawaale heerku maanta maraayo waxaan rabnaa inaan idiin soo bandhigno muuqaal kale oo ah xisaab celinta cawaale xisaab celinta cawaale ilaa waxay soo socotay 2 sano hadda ka hor waxaa la sameeyay xisaab celin guud oo bulshada dhan aan la wadaagnay oo ahayd markii roogga la soo gaday qalabka la soo gaday kuraasta la soo gaday laakiin waxaa ka dambeysay dhismihii iyo hawshiisii iyo lacagihiina soo galay meeshii ka yimaadeen ayadana waxaan rabnaa in ayadoo faahfaahsan idiin soo bandhigno oo muuqaal ahaan idinkugu soo bandhigno dokumenti ahaan idinkugu soo bandhigno waxaan rabnaa inaan idiin sheegno kaalintayada guddiga fulin ahaan kaalintayada maxay tahay iyadana inaan si fiican idinkugu cadeynaan rabnaa si ay u ogaataan idinka laftirkiinu waxa idinkugu maqannahay midda ugu horeysa haddaan ka bilaabo maxaa sababay hadal haynta badan walaalayaal saa la socotaan garoon waxaa dhisi jiray dawlad shacab weligiis garoon ma dhisinin annagu garoonkayga gaalkacyo waxaan dabcan inaan isku tashi ku dhisano 2 sano ka hor baan bilaabanay laablakac baan ku bilaabanay muxuu ahaay fundraising aan dibadda gudaha ka samaysanay baan ku bilaabanay dawladda muxuu codsiyo aan u qoranay aan rajeynayna inaan wax ka helnaa u bilaabanay marba wax ku haaminayna markii hore waxaan ku haaminaynay garoon yar oo iska kooban rehabilitation aan ku samaysanay inta awal noo dhisnayd kadibna hankayga waa sii weynaaday waxaan isniri garoon fiican oo la jaan qaadi kara caalamka aad samaysataan walaalayaal markii ugu horreysay oo aan bilaabanaynay meeshii aan ka fikiraynay waxay ahayd marka laga soo tago jaranjarooyinka la dhisayo iyo muxuu stage-ka waxyaabihii aan ka fikirayna waxay ahayd fieldiga oo ahayd meel godad oo lagu cayaaro oo dhalinyaradu ay muxuu ahay dhibaato badan ku qabtay fieldiga marka waxaan ku fikiraynaa inay noqoto meel falaad ah xoolo dhul ka sareysa aad loo muxuu jukeey ka bacdan aan roogga saarano annaga oo dhan kulliga guddiga waxaan qabnay inay ku baxayso lacag dhowr iyo 20,000 aan ka badnayn waxaan u keensanay shirkad leeyahay kibaarka waxay ahayd shirkad iyada laftirkeeda aan jidadka dhista laakiin aan weligeed garoon dhisinin waxaan ugu xilinaynay inay tahay shirkad deegaanka ah inay tahay shirkad qalab fiican haysata inay tahay shirkad yacni muxuu ahay aan ka heli karno contribution aan ka heli karno sida ay mulkiilayaashooda noo ballan qaadeen waxaanu niri inaad garoonkaas noo jugaysaan lacagta nagu baxaysa maxay tahay 26,000 bay noo soo qoreen 26,000 waxaanu niri waxaan idinka rabnaa 50% oo muxuu ahaay contribution inaan na siisaan 50% marka waxaan filaynaa 13,000 ay nooga soo hagaagayso dawladda markaa 15,000 ka filaynay waxaan islayn intaas haddii aad field ku dhammaysataan roogiina aad fidsataan garoonka intiisa kalena contribution kale u heli doontaan
maadaama aad haysataan roogii kuraasi qalabkii oo dhan iyo dadiilo fiican baan haysay isla intii annagoo ku jirna waxaanu ka helnay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliyeed lacag 220,000 oo marna la siiyey oo codsanay maadaama gobolladii soomaaliya oo dhan la wada siiyey oo puntland ku jirtay iyo 601,000 oo muxuu ahaaye maadaama lacag mashruuc ka timid ay ahayd 601,000 oo ku jirta codsiga iyagana mar gaar ahna loo soo diray 220,000 iyo 600 iyo $1 ayaa waxaa lagu soo shubay garoonka muxuu ahaa accountka garoonka Cawaale faahfaahinteedana waa mid aad arki doontaan su-aasha labaad oo aan rabo taas marka waxay keentay in qiimayntii lagu sameeyay markaan injineer keenay oo injineer aan raadinay injineerku wuxuu ka fakarayaa waxa waa sumcadiisa wuxuu ka fakarayaa garoon waxa uu yahay wuxuu ka fakarayaa in hadhow madmadow kaga imaan meesha annaga 26,000 iyo waxyaabo ka yar aan ka filaynay wuxuu injineerkii soo qoray 120,000 in stage-ka maxaa field kaliya lagu dhisaayo wuxuu yiri waxa la rabaa in muxuu ahaay dhulku si uu hadhow u deginin ilaa 30-20 la qodo waxaa la samaynayaa ilaa 9 senti in carakaawo lagu buuxiyo in haddana 9 senti oo kale lagu buuxiyo jay waaweyn haddana intuu booyin la gasho drainage oo biyaha yar yar ee waaweyn isugu jira geesaha u kala daadiya haddana in jay kale 6 senti la saaro oo ka sii yar yar haddana in jay 3 senti oo yar yar la saaro markaas ka bacdina shub la saaro carro la saaro inta rooga la saarin la hubiyo drainage laba nooc ah oo midna biyaha hoos ka soo qaadaysa midna geesaha ka saaraysa in la waxeeyo sidoo kale wuxuu noo sheegay biyaha meelay aadayaan malagaalka drainage ma laha marka waxaa loo baahan yahay buu yiri inaan laba god qodno oo muxuu ah labada gees ka qodno oo biyaha ka rogmada garoonka ay ku dhacaan oo 2x4 ah oo 4 mitir hoos loo qodaayo 2 mitirna geesaha ah ayadana waxa weeye intaas uu soo kordhiyay lacagta intaas ay noqotay stage-ka lagu cayaarayo oo ayadana aan filaynay inay noo noqon doonto stage kooban waxaan ku fakarnay inaan maadaama aan lacag helnay aan sii quruxsano oo sii ballaarino oo weli haddii wax noo soo haraan gadiga kalena stage kaleeto aan kasii samaysano wixii oo dhan markii la qiimeeyey shirkadda sidaa idiin sheegnay ma aysan haysan iyadana waa aragnimo fiican lacagtii ay qiimaysay iyagana khasaaro badanaa gashay annaga laftirkeena wax badan aan ugu soo noqday wax badan ayaanti aan qiimeeyno oo badan oo lacag ayaa noo soo noqotayna way jirtaa lacagtii shirkadda waxaanu ka codsanay inay 50% na siiso sidii waagi hore ay noo ballan qaaday ha yeeshee 50% waa suurtagal weyday maadaama la yiri qalabkana free baa laydinku siiyey muxuu ahaa waxaad baxsataan gacanta kaliya baxsada marka walaalayaal taas waxay keentay su-aasha hadal haynta ah in wixii la filayay sidii noqon weydo lacagtii injineerku uu ku xisaabtamay sumcadiisa uu muxuu ahaayeen standardkii adduunka looga dhaqmi jirayna uu noogu qiimeeyay garoonkii taas waxay keentay marka dhowbaad ku arki doontaan xisaabtii marka la celinayo siday lacagtaas ku baxday taas waa midda hadal haynta kale keentay in haddana lacag loo sii baahan yahay tii hore oo dhan ay garoonka gashay laakiin alxamdulilah maanta aan haysano garoon qurux badan standard ah oo garoomada caalamiga maanta la jaan qaadi kara garoonka horta ma muxuu ah ma qabiya mise waa dhammaaday su-aasha ah waxa weeye garoonku qabya ma aha garoonka afar waxyaabood baa ugu muhiimsanayd afarta waxyaabood ugu muhiimsanayd waxa waaye fieldigii lagu cayaarayay ma dhammaystiran yahay waa dhammaystiran yahay waxa u dhiman oo kaliya godadkaas labada gees laga qodaayo iyo drainage-ka oo muxuu ahaay bahalkii shubkii korka laga saari lahaa si biyaha aysan muxuu ciyaartoyda ugu dhicin meesha godka ah ay kaliya u dhiman iyo roogii in la saaro waxaa kaloo dhammaystiran stage-ka muxuu dhalinyaradu fadhiisan lahayd oo lagu cayaari lahaa oo dhan isagana waa dhammaystiran yahay waxaa dhammaystiran iyadana VIP-da qolalkeedii ahaa qolalkii ciyaartoyda qolkii garsooraha masquulihiisii mutuneelkiisii cadayntiisii waa dhammaystiran tahay waxaa dhammaystiran jaranjarooyinkii geesaha ay ka lahayd VIP-da waa iyadana loogu talagalay dadka VIP-da inay fadhiistaan kaliya waxaa dhiman muxuu dabaqa ugu sareeya oo loogu talagalay hagoogii weynaa oo ay fadhiisan lahayd madaxdu oo iyadana looga baahan yahay in hagoog loo sameeyo hagoogtaas oo markii hore aan ku fakaraynay hagoog standard oo dibadaha ka keensataan laakiin markii dambe aanu ku qiimeysanay hagoog ka qiimo yar qurux badan oo fiican iyo laba stage oo yar yar oo laba jaran jaro oo loogu talagalay dadka fadhiisanaya inay kala sareeyaan waxa intaas waa dhammaystiran tahay waxyaabaha dhiman haddaba waa maxay waxyaabaha dhiman oo hadda muxuu ahaayey garoonka ka dhiman waxaa waaye kow hagoogtaas kore oo muxuu ahaayey uu garoonku leeyahay
oo muxuu ahaaye aan ahayn waxyaabaha majorka ah aan ahayn oo ayadana la qiimeeyey oo mar hore la qiimeeyey waxaa dhiman muxuu ahaay masquulihii VIPda oo la sameeyey in dusha wax laga saaro kaliya waxaa dhiman rinjiyeyntii la rinjiyeyn lahaa stageka baa dhiman waxaa dhiman roogii in la saaro roogii waa yaalaa kii ugu dambeeyey haddeeraa la keenay mar dhexe oo ahaa kii hoosta laga marinayay oo waagi hore qorshaha ku jirin maadaama uu garoon caalamiya noo noqday la yiri dheeraad iyo injineerku nagu la taliyey inuu sii quruxsanaanayo haddii aan kaa sii isticmaalno waxaa kaloo iyadana dhiman nalalkii lagu wareejin lahaa oo iyaduna ahayd shaqo aan markii hore uguba jirinba qiimeynta muxuu ahay contractorka walaalayaal waxaa dhiman oo kaleeto dhulka inta muxuu ahaa fieldiga uu ku fadhiya mooyaane muxuu ahaayey inta ka bannaanaanaysa in ama interlog la saaro ama la saaro laami yar oo khafiif ah ama la saaro wax kale oo muxuu ahaayey oo dhagaxa la saaro iyadana waxaan haysanaa material badan oo fiican oo nagu filan oo wasaaradda shaqada iyo shaqaaluhu ayna siisay waxaanu haysanaa ballanqaad aanu shirkadda ka haysano oo ah inay muxuu ahaayey laami yar oo khafiifa noo saari doonaan qiimo yar oo laami kaliya gadan doono iyaduna waxaa waaye shaqo fudud oo aan saa u dhib badnayn waxaan muxuu ahaay iyadana dhiman ciyaartoyda muxuu ah marka fieldiga la sameeyo siligii lagu wareejin lahaa asagana baa dhiman waa isaguna aan wax weyn ahayn waxaa dhiman biraha jaranjarooyinka muxuu ah labadii stageba u dhaxeeya oo muxuu ahaay inaan dhalinyaradu ka dhicinin waxaan ku darnay oon xataa ku jirinin heshiiskii horeeto jaranjarta u korayso markay dhammaatay waxaa la yidhi marka gool dhasho dadku waa istaagaa maxaa dhalinyaradu markay istaagaan waxaa dhici karta inay ka daataan gadaal iyada laftirkeeda mitir iyo 80 inaan ku darno si qof kastoo booda ama istaaga uusan uga dhicinin taasna waa dhammaystirnay waxa kale oo dhiman oo iyadana waxaa waaye baarkinkii baarka marka laga soo galo jaranjarta gadaasheeda inaanu muxuu ahaayey baarkinkaasna aan buuxino si jidka madaxda usoo maraysa si aysan audiensigii isku arkin madaxduna in aanu iyadana samayno waxa kale oo dhimanna waxa waaye darbigii muxuu ah dhismuhu markii hore ka socday oo gadaasha ah oo dhagaxiisa u yaallo inaan iyadana dhammaystirno oo dhagaxaas aan xirno iyo masquulaha shubkooda oo la sameeyo intaas marka waxa waaye maxaa loo sameyn waayey waxa loo sameyn waayey waxa ugu badan waxa waaye waxaa la ilaa rooga la dhigo oo la ogaado rooga iyo levelkiisa la ogaado dhulka lama soo kicin karo dhulka marka waxa waaye kicintiisa waa inaad dib u dhigtaan ilaa rooga la sameeyo again waxa waaye roogii waa la dhigi lahaa injineeradii laga soo qaadi lahaa China muxuu ahaaye COVID-19 daraadood ay u xanimeen haddaan injineero kala raadsan lahayna diyaaradii baa meel walba ka xaniban lacagtana qaar bay naga qabaan waxyaabaha kaleeto muxuu ahaaye uu xaniban yahay intaas ka sokowna waxa weeye waxyaabihii yaryar ayaan dhammaystir lahayna waxaan u aragnay ilaa shaqada kaalbe la dhammeeyo inaysan aysan muxuu ahaay wax weyn oo lagu dadaal ahayn sidoo kale waxa waaye shirkadda heshiiskoodii hore inay dhammaystiraan almost waa dhameeyaan xoogaa lacag way nagu leeyihiin lacag yar oo kale dhimanna way jirtaa intaasoo dhanna marka waxa weeye way sii wadi lahaayeen laakiin xanibaadaas guud oo adduunka oo dhan ka dhacday ayaa garoonka u xaniban yahay waxyaabaha joojiyey yaboohii aan dibadda ka samayn jirna waxa weeye maadaama garoonkii oo lagu qiyaasay markiisii hore dunida sida uga dhisaya marka la fiiriyo ilaa half milyan ka badan ku bixi lahayd annaga wuxuu noo kacayaa wax 400,000 ka yar 186 ayaa ilaa iyo dhammaadka muxuu ahaay nalalka inaan ku xiranno inaan muxuu ahaayey dhulka oo dhan aan shub ka dhigano laami ka dhigano inaan wada qurquxsano ilaa 186,000 baa dheeraad ku noqonaysa kontraadii ugu horreysay oo aan galnay oo aanu ku galnay ogaal la'aanta aan ku galnay ayadana dawladda Puntland baa ballan qaaday 100,000 hore waxay rabeen inay noo soo daayaan ayaamihii fatahaadu dhacaysay taasaa xaniftay ayadana waa rajeynaa inay sida ugu dhaqsaha badan dawladda Puntland ay soo dirto kaalinta guddiga fulinta walaalayaal waa la socotaan guddiga garoonka Cawaale 3 qaybood u qaybsamaa wuxuu u qaybsamaa golaha guud iyo guddiga fulinta oo laba u qaybsama guddiga fulinta 2 qaybood u qaybsanaa qayb waxa waa qaybta saxiixayaasha la yiraahdo qaybta saxiixayaasha la yiraahdo 2 odayaal 3 odayaal bay ahaayeen nin waxa la yiraahdaa Sheekh Aadan Maxamed Cigaal waa taqaanaan muxuu ahaayey nin la yiraahdo Burhaan Axmed Nuur Iftin iyo Horeeye
horeeye mar dhexe ayuu saxiixa ka baxay muxuu ahaay labadaas oday baa ku haray ayaantana waxay horeeyana ugaga baxay sababta uga baxay waxay ahayd ayaantii Puntland lacagta federaalku ayna siiyeen oo la yiri lacagta muxuu ahaay saxiixeeda dawladda lagu wareejiyo aduu muxuu ahaay waswaas dhinacaas ka galay daraadeed ayuu isaga joojiyay saxiixaas kadibna qof saddexaad laguma badarinin guddiga inteeda kale shaqadeedu waa maxay annaga lacagta sidaas baan annaga una saxiixin account aan leenahayna oo muxuu ahaa annaga aan ognahay in aan ku jirinin annaga shaqadeedu waxa waaye kow inaan raadino right muxuu ahaay person oo hawshaas qabta oo si fiican u qabta oo shaqadaas u qabta iyo xogteeda inaan raadino waa soo helnay alxamdulillaah rabbil caalamiin injineerada maanta aan haysano waa injineero lacag yarna noogu kacay isla markaasna aanu soo hubinay garoonada ay dhiseen indhahay ku soo aragnay oo aanu tagno annagu iska bixinay lacagteeda aan ku soo aragnay oo aan assessment ku soo sameynay number 2 waxa weeye wax kasta oo injineerka iyo shirkaduba ay soo qiimaysato inaan dib ugu noqono oo ka daba tagno suuqa tagno soo taanayno iyo in aanu contribution kaada ka qaadno oo haddii ay muxuu 10,000 meesha soo tahay aanu 5,000 ka reebno inta kale tan aanu diidno oo annagu waliba si kala culus nahay oo qaarkayo uu dhulka la seexdo qaarkayo xoogaa aan nahay yacni dadka ilaa xad lama gaaro shaqada kale oo annaga aan leenahay waxa waaye in aan muxuu ahaa ila dhaqaale raadino ilaha dhaqaalaha maxaa ka mid ah annagoo xoogaayo haysana wixii awal nooga harharay buraan bas fiican u faahfaahin doona wixii awal nooga harharay contribution-kayga annagoo haysana baa haddana waxaan diidnaa $1 in laga bixiyo waa ogtihiin 2 sano shaqadaas socotay halkaanaan wada fariisanaa korontaa nagu socota biyaan wada cabnaa weligeed $1 lagama bixin intaas waxaan ka cararaynaa waxaa waaye cawaale shil uu leeyahay baa si private loo isticmaalo 2 waxa waaye safarada marka alaabta la doonayo alaab baa la doonay waxaa laga doonaa Boosaaso dad baa tegay waxaan raadinay ganacsatada Boosaaso walaalayaal alaabta noo soo rara alaabtaasaa jirta baabuurna siiya waa noo soo rareen ilaa ay gaalkacay noo keeneen haddeer ugu dambeysay 3 roog oo injineerku ku taliyay in hoos laga mariyo roogga laga hoos mariyo iyo muxuu ahaay alaabta la hoos mariyo ka hoos mariyo waxaanu ka wacnay Dubai nin joogo oo shirkad ah baa waxaan ka codsanaynaa surad shirkadda suurad waxaan ka codsanaynaa inaan noo soo rartaan dekada nooga soo bixisaan lacag ma haysano gaari noogu soo qaadaan wax naga ogolaadeen waxaan bamooday markii aan baryootameynay wax dhowr kun iyo ah laakiin maba noqonba wax ilaa 500 600 waa awoodi karnay account-kayga waa ka heli karnay laakiin intaas waxaan diidaynaa shil extra inaan bixino marba guddiga waxay ballan qaadeen oo ansixiyeen in ninka qorax jooga ah oo guddiga ka mid ah oo subaxii 6 markay soo galaan guddi shirkadu la soo gala oo birtay shalay noo sheegeen oo tuubadii la qiimeeyay hadday tuubo ka bedelan oo ka jilicsan ay keenaan shaygan kiimiya may muxuu darbigan dhagaxii loogu talagalay maya ciidan ma tahay tii sax ahayd maya ninka dhahaya waxaanu niri 12 maalintii taagan oo 6 to 6 jooga biyacabaal u baahan yahay $10 maalintii ma siinaa oo muxuu ahaayay uu biyaha iyo shaaha ku cabo marka hore guddigo dhan baa waxay dhaheen war 5 baatiri ka badan buu qofku istaahila haddana ka bacdi waa diidno waxaanu niri wax la siinayo ma laha meesha volunteer baa leeyahay wax laga bixinayo ma laha waxaa jirtay dhowr jeer oo isku daray lacag Puntland u raadinay annaga isqarash gareynay baawarteeda annaga qaadanay annaga muxuu ah hoteeladii degnay weligeedii alle $1 cabaa alaab laga bixin mana taabana mana naqaano meel ay taalo midda kaliya annaga roolkayga waxa waaye in marka aan hubino injineerku uu yiraahdo injineer ma la gaaray 6 centimeter yes dhagaxan ma yahay kii haa kan muxuu ahaay slope sidii saxa ma yahay markuu yiraahdo markaas ka bacdi shirkadu soo codsato baa waxa u gudbinaa saxiixayaasha lacagtaas siiya inta kaliya aan ku leenahay midda ugu dambaysa hadalka mar raba inaan muxuu ahaay ku degdeg ku sii badiyo waxa waaye haddeeroo la joogo waa ognahay waxaan ka walwalsanahay inaan xataa 186 kun oo noo dhimin aanan helinin marka waxaan isniri xataa meelo kale hadda wax ka heli kara anu Mareykan baa aaday dhalinyaro la kulmay fundraising baan sameeyay ana iskharash gareeyay ana meel la fariistay waxaan ku niri waxaan rabnaa yacni ha qaadanina waxyaabo waaweyn waxa xataa qaadataan nalalka waxa qaadataan microphones waxa qaadataan waxa silga yarka oo dhowrka $1,000 oo lagu wareejinayo
dad badanaa noo ballan qaaday iyaga laftirkoodii inkastoo karoonuhu uu muxuu ahay xanibay haddana waa still waa valid waaye waxaa kaloo jirta daraad shirkad la yiraahdo qoladan SSA la yiraahdo muxuu qolada ay biiska barnaamijka biiska ay siiyeen waxa ugu jira inay sameeyaan sport for peace waa ka daba galnay waxaan ku niri war sport for peace xagee ku sameeynaysan ban haddii garoonka xaniban yahay waxaan idinku codsanaynaa wixii yarka haayo hadhowto ciyaartooy aad ku ciyaarsiin lahaydeen almeena garoonka nagula dhammaystira waa garanaysaan cabdifataax iyo yacni qoladan BSA la yiraahdo waxay dhan codsi soo qorta waxaan noo soo qortaan laba waxyaabood nalalku intee idinku kacay waa 12,500 baan nalka dhulka muxuu ahay buuxinta la buuxinayo meelaha banaana ilaa shirkadu waxayna tiri yani markay contributionka halfna siiso ilaa 30 meelahaas ku tagayaan marka waxay dhaheen bal labadood inaan mid idin siin karna ama labadaba idin siino soo codsada still anagoo Puntland sugayna baan haddana laalaabiye kala galnaa waa codsanaynaa cid kastaan ku codsanay dibadda waa la hadalnaa waxaan hadda ku talagalnay shirkeenan hadduu ansixiyo inaanu dadka ganacsatada oo magaalada aan shirino iyo shirkadaha aan dhahno war garoonkan waa kiini caruurtiina ku ciyaaraysa inkan bay ka helayaan dhalinyaradu shaqo abuur baa ka imaanaya idinka laftirkiina qurbaankiina ku baxsanaya waa ku lugeynaysaa wax badan oo idin taraaya inaan dhahno lacagtii annaga naloo dhiibayna waa taasaa waxaan idinku codsanaynaa inaad contributionka qayb ka qaataan haddaa galabta ansixisaan waa shirinaynaa muxuu ahaa goobaan u qabanaynaa waan u bandhigaynaa intaas halkaasay naga tahay shirkadu yaantii hore 40,000 ay bixisay oo dollar oo ay muxuu contribution u bixisay kibaarku ka bacdina 1,000 hadday keento 5 aan jirnaa 10 hadday keento 3,000 hadday keento 1,500 aan jirnaa iyadana saasaan ula taagannahay walaalayaal marka waxaa waaye annaga halkaasaa burhaan kusoo bandhigi doonaa waa idiin sheegnay annaga guddigayaga fulinta lacag ma taabano meelay taalla ma naqaano muxuu ahaaye yacni faraha lama galno ma jecelin xataa in qof muxuu ahaa annaga naga mid ah uu muxuu ahaa $1 uu yiraahdo ha lagu bixiyo qaabkaas annaga marka waxaan rabnaa waa sacrifice gareena dadaa bakaaradooda subax u kalaha oo shaqo aada oo ka yimaado oo soo shaqaysta annaga habeen iyo maalin waxaan u taagana dan guud baa u taagana inaan garoonka taagnaano inaan dad barbarino inaan hadba qof faraqa qabsano in dawladdu xataa la karaahiyeysato saan u lahayn lacagtii heer waxaan gaarnay yacni annaga laftirkeena isku nacno waxaana la ka dhigay muxuu ahaay qabaa'ilo kale iyo waxaana la ka dhigay iyo xisbiyo kale garoonka Cawaale daraadiis annaga marka waxaan u dul qaadan karna waxaa waaye inaan dhimanno inaan nafta beelno inaan Cawaale ilaa aan dhalinyarada inta ku soo wareejino aan leenahay ku baashaala annaguna aan ka tagayno haddii naftaydu gaarto diyaara una laakiin hal mid diyaaru ma nihin in la dacaadeeyo diyaaru ma nihin in la yiraahdo waxbay dhaceen waxbay isdaba mariyeen diyaaru ma nihin qofkii muxuu ahayna dacaadeeyo ama been naga sheega aakhirana cafiin maayno adduunkan maxkamada la koreynaa sababtu waxa waaye qofka ku yiraahdo waxbaa dhacday ama waxbaa isdaba marisay waa inuu caddeyn ku keenaa waa inuu yiraahdo yes waxaana isdaba marisay kana samaysay inuu caddeynta ku keenaa annaga diyaar waxaan ula nahay ninkaas odayga jeegagiisa annagu xataa aawa ma dhahno laakiin dabadiisa la isoo masawiraa computerka la isoo gashaa muxuu ahaay kulli qof kastana saas waaye annaga laftirkeenaan is aaminin qofba qof buu daba taagan yahay hal qof go'aan ma gaaro ilaa aan go'aanka wada qaadano waa soo wareejinayaa marka waxa weeye muuqaalkii idin tusaynaa xisaabtii idin tusaynaa ilmaadeerayaal haddaa wax nagu haysataan $1 Allah ka dhigo on meel marinay $1 aad tiraadaan biyaha ku cabteen ama maalin gaari ku qaadateen ama hoteelaha ku seexateen ama guryaha ku dhisateen waxaan rabnaa dadka wax dacaadeeyay mareegaalka cood baa aan is ogeyn war iska haynin mase waa dadaan reer gaalka cood ahayn oo ka xun horumarka iyo dadaalka reer gaalka cood taasna inay kala cadaataan rabnaa maanta